waa maalinimo khamiis ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 11 bisha koowaad 2024 waxaa maanta si toosa degmada Balcad looga daafuray tababar garsoore kaas oo ay ka qayb gali doonaan 15 garsoore waxaana goobta ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer federaal iyo heer state kuwaas oo aad u dhiirigeliyay 15 garsoore ee ka qayb gali doona tababarka mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala ama noo kulmiyay taada kale waxaan aad ugu mahad celinaynaa xiriirka heer federaal iyo heer state meesha fadhiyo oo horeeyo Dr. Aways iyo gudoomiyaha xiriirka state-ka maanta waxa loo fadhiyaa waxa waaye 15 garsoore oo degmada nasiib u yeelatay in loo tababaro garsoorana waa taqaaniin macnaheeda waa inuu cadaalad fala laga rabaa dadka oo biri oo maamulayo qaladaad badan oo la kulmaa waxyaabo badan oo arka qaar aflagaadeynayo qaar la dagaalayo waxa rabaa inuu cadaalad falo asoo dhinacan ahayn idinku boorinayna marka maamul ahaan waxaad tihiin 15 qofood ugu horeeyay oo degmada nasiib u yeelato loo tababar garsoor waa nasiibkiina noqotay waana idinku mahad celinaynaa laakiin waxaan u baahanahay inaad ka soo dharaashiin biri aad noqotiin kuwii tiimka dambe idinka dambeeyo idinku daydaan aad u noqotiin role model macna si idinku daydaan biri macallin garsoor hebel iyo lagu kalsoonaa karo halka garsoor inuu kalsoonaa karo dalku kalsoonaa karo waxba ma culayska saara ka faa'iideysta macallimiinta maanta waxa idin barayso qaabka waxa idin barto u qaata degmooyinka kale maanta waa annaga ugu horeeyno nasiib u yeelanay nasiibkaas waxa la rabaa marka inaad ka soo dhalaashiin maanta waa maalin taariikhi ah marka tan waxay tusaysaa in degmada Balcad ay tahay degmo xadaari ah laga soo gaaray isboortiga Hirshabeelle gobolka Shabeellaha Dhexe sababtoo ah seminaarka maanta qabsoomay seminaarkii ugu horeeyay laga furo degmada Balcad taasna ma alla ka soka waxa maadada iska leh xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya oo u horeeyay gudoomiye Cali Sheene hal guddigiisii ahay isboortiga waxa la gaarsiin doonaa min degmo ilaa Ituulo maanta ayuu si fiican u dhabeeyay gudoomiye Cali Sheene tiimkiisa marka waxa leeyahay degmada Balcad waa degmada xadaari ah waxay sameysay garoonkii ugu horeeyay ee Hirshabeelle ee leedahay waa ogtiin waa degmada Balcad ku yaalay insha Allah degmooyinka waxaan jecelnahay in ayagna la sameeyo doono garooman idinkana waxa tiin garsooreyaashii ugu horeeyay state-ka oo seminar loo qabtay degmada Balcad marka waxaan leeyahay aad iyo aad u faraxsanahay inaan maanta qayb ka noqdo furitaanka seminaarka 15 qofood ee degmada Balcad marka maanta ka bilaw waxa ka bixi doona duu ilaa yira marka hore markaan ciyaar qabanayno waxa dhici jirtay xamar noo keeno codsi jiijire ana la soo diro garsoorayaal laakiin maanta waxa ka bilawday idinka aad dadkii macna matali lahay Hirshabeelle meel ay meeshay ka yimaadaan aadi lahay xaqiiqo maanta waxa nasiib u yeelateen inaan helno 15 tababar oo arbitrayaal ah oo xiriirkiina uu aqoonsan yahay oo federaal iyo state ay wada joogan ma filayo inay qofka reebi doonaan ninkii asaga iska reebasay u taala xaqiiqo markii eray waxbarasho lagu sheego waxa la rabaa inaad aad uga faa'iideysato maanta history fiican ay noo tahay sheeko bilow fiican ay noo tahay waxay noo tahay soo hagaagidda amniga sababtoo ah bulshadu shalay maxay ku mashquulsaneed qori al-shabaab wala xaan dilay ku mashquulsan laakiin maanta maxay ku mashquulsan tahay sport waa wax aad u qurux badan waaye waxa idin kula talinaa dada waqti iyo juhdi iyo gurigoodi iyo ilmoodi ka dhaxooyaan inaad ka faa'iideysatiin eraygaas maanta erayga lagu yiraahdo inaan biri igu soo celi aan dhihin oo aad adiga qof kale uga faa'iideysto xaqiiqo waxaan leeyahay oo ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa calaamatul madarno ee waxa la yiraahdaa saxaabadina xilliga roobaha daruurta cadeynaysa inuu roob soo socdo annagu waxa xaqiiqo ah inay nabad soo socota arkayna
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب إن شاء الله تعالى ما أنت تاريخ وين واي ودمنا بلعت أسوارتي إن شاء الله حنرجعها إن كفاية سدوان متوبر كان حنخون عملنا دكمة وهوريسي أو توبر كرسوريال إن الله سمايو مرك هذا وما عليها يا تدكي كسوشيخي أرنتان إمام الدكمة ده حنرجعها إن كفاية سنة دولايرة وحربنا إن هلنا كرسوريال تيله وحربنا دولايرة إن نهار أسعنا وأكتين قرن عالمي على السنة هذه قرن عالمي السنة وحواي حلو باهي هذاك الحاجة لها إن هلا وحرجينا إن 10 كفايز دونتين معلمين تورق كم خلد دونتين مدة كلا وحواي 4 وحواي وضد سبورتي جعل نحا استيت حنفريو قدومي استيت حريركم بالعكس قدوم يوسف وشيء يا إن بعد 4 إنه ضد جعل سبورتيجا وايو حركيسا مخالكو وجدة ضد سكحرنيين ما ملكودنه horkacaayo oo jecel isboortiga inay horumariyaan annaga kadegma ahaan waxa og tahay in gudoomiye wixii la faro waa qaadanaa waxaan maad celiyaa in xiriirka kubadda cagta oo hore doctor Abbas custigii aan ku codsanay in tababar noo sameeyo oo 15 garsoor noo tababaro noo ogolaadeen annagana waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano dowladda insha Allah taala inaan ku xirnaano anagana aan noqono dad isboorti ah insha Allah dowladda waan u mahadcelinayaa maadaas oo dhan ayaga leh farxad gooni ay noo tahay inaan joogno degmada Balcad anagoo u fureyno garsoor dhalinyaro ah oo 15 qofood ah oo markaas la bari doono sharciga kubadda cagta ah sharciga kubadda cagta markii lagu leeyahay waxa waaye 17 qodob law of the game waxaan rabnaa garsoorayaasha halkaan fadhiyo maanta laga bilaabo inuu u bilaabo doono sharcigaasi oo qof walba u bar doono degmada waa degmo weyn waa degmo fac leh waa fac weyn waxay leedahay garoon kubadda cagta ah waxay leedahay ciyaartooy laakiin inay garsoorayaal yeelo weyso wax qurux badan ma ahan marka in la garsoorayaal yeelo weyso macnaheedu waxa waaye qof walba firimbiga uu qaadan karaa garoonkaas uu ku dhex ordi karaa laakiin sharciga garsoorayaasha ma yaqaanaan waa su'aasha inaan hadda ka bacdi leeyahay sharciyeeyo oo sharcigaas ay qaadatiin 17 qodob qof walba uu qaato xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ugu horeeyo mudane Cali Cabdi Cali Shiine waxay ka go'an tahay sidoo sheegay gudoomiye Yuusuf degmo kasta in la gaarsiiyo kubadda cagta waaxdeena garsoorka waxaan diyaar u nahay degmo kasta inaan gaarsiino bishii horeeto waxaan ka soo furnay Baraawe oo macnaawis oo noo soo furay garsoorayaal Baraawe maaragtay markaas sidiina camal ahaay oo markaas loo bilaabayay waxa qorsheyn uu ku jira marka inaan gaarsiino degmada Afgooy inaan gaarsiino marka degmooyinka inta badan magaalada Muqdisho u dhow ayaa xaq u leh marka koowaad marka dambana waxaan gaarsiin doonaa gobolada kale adikana xaq u leeyahay maxaa yeelay daris waxa la tiin magaalada Muqdisho oo xarunta weyneed ee xiriirka kubadda cagta ay ka furan tahay sida daraadeed garsoorayaasha saacadan laga bilaabo waa inaan leeyihiin sharaftii uu garsooraha lahaay marka in leeyahay waxa waaye garsoor marka tahay kooxaha inaad dhex gashid ciyaartooyda dhex gashi laguma ogolo maxaa yeelay garsoor macnaheedu waxa waaye garsoor waxa waaye garsoorid garsoor waa laba kooxood inaad garsoortid laguma ogolo inaad koox kaleeto had saacadan laga bilaabo markii hore la sheekaysan jirtay wixii sheeka waa caadi laakiin markii ciyaaraha jiraan oo kale inuu garsooraha kooxaha dhex galo ma qurux badno sumcadiisana uma fiicno sharafiisana uma fiicno sababtoo ah hadhow waxa uu leeyahay hebel uu la fadhiyay koox hiblaayo uu la fadhiyay taasina iska mid kale macallimiinta casharka bixinayso macallimiin experience waaye waqti badan macallinimada soo dhigay wax badan inaad ka faa'iideysatiin rajay doona insha Allah sharciga kubadda cagtana aad ka faa'iideysatiin muddada koorsiga noo socon doona waa 4 bilood ilaa 6 bilood intay nagu gaarto laba phase waaye phase koowaad marka dhameysiin imtixaan la qaadaa orada la qaadaa phase labaad haddana sidoo kale qayb kale to video wala inta si doona oo faawlada la galay kan rasmiya kan jaalo miya kan penalty miya rigoor miya waxaas ku bar doontiin ayadana marka dhameysiin phase labaad waxa la qaadi doonaa imtixaan orodna waa la qaadaa kadibna shahaada qaadi doontiin oo xiriirka idin sii doono kadibna waxa kamid noqon doontiin garsoorayaasha xiriirka u diiwaan gashan waxa laga yaabaa garsoorihii fiicnaado oo fid noqdo oo aan aragnaa inuu fiican yahay inaan magaalada Muqdisho ciyaaraha ka dhacay aan ugu wacno halkaas ciyaar uu ka qabto heer koowaad heerka labaad heerka saddexaad marka garsooraha maxaa loogu baahan yahay inuu garsooro fiican noqdo maxay tahay ujeedadiisa waxa waaye garsooraha markuu ugu horeyso sharciga inuu galaaska marba soo xaadiraa
macalinka su'aalo inuu weydiiyaa wixii markaas oo maaragtay fahmi waaya macalinka ula laabtaa internetyada uu galaa ciyaaraha uu daawadaa garsoorayaasha qabanaya qaladaadkooda uu fiirsadaa kadib markaasaas aad samaysid dadaalkaaga orodkaagana aad qurxisid mar walba traininna lagaa rabaa garsooraha lagama rabo keliya buug inuu akhriyo waxaa laga rabaa garoonka labada kooxood ordaysa waxaa laga rabaa inuu daba ordo markaas waxaa loo baahan yahay garsooraha inuu sidii ciyaartooydaas u ordayaan inuu ordo haddii garsooraha sharciga yaqaan laakiin orodka uu ku dhaco micno ma keenayso sababta orodkii uu ku dhacay aniga orodaan qaadnaa laakiin garsooraha sharciga hadduu xoogaa wax ka halaysan yahay orodkiisa uu fiican yahay waa la wadi karaa garsoorahaas laakiin garsoore orodkiisa xun yahay lama wadi karo orodkaaga maxaa ku fiicnaan kartaa garoona fiicana haysatiin qof walba inuu subaxdii tago ama galabtii hadduu fursad heli karo galabtii inuu tago taasaa ina kugu dardaarmaa midda ugu muhiimsan aan rabana waxaa waaye mar walba waxaa aragnaa markii meel la bilaabo koorsi markii la bilaabo 15 ku bilowdeen waxa arkaynaa iyadoo la soo dhacay oo la gaaray 10 ama 8 dadka ay kala harharaan dad isku xiran inay noqotiin fursada u yeelateen wax yar oo kooban waaye inta koorsiga soconayso qof walba inuu xooga saaro sidoo ugu qayb gali lahaay oo u dhameysan lahaay koorsidan macallimiinta magaalada Muqdisho ka imaanay khamiis jimci 10 baxayaan inta kale meesha rabtid aad laakiin labadaas maalin yaa lagu weynin insha Allah taasaan noo balana anoo ku hadlayo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed maaragtay afkiisa mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine seminaar koorsigaana waa noo furan yahay